kulanti wacan wanaagsan daawadal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee janalkeena qodobadan ku heeran waxaa ka mid noqon doona Libaansan Baruusho oo sheegay in beesha xabaadle ay hiiraan degtay ay sii wadi karin dagaalka ay kula jiraan al-shabaab sabab darteed ayuu xildhibaanka warbaahintiisaas u sheegay dad Soomaaliyeed siyaasiyiinta ayaana arintaasi si weyn uga fajacay hadalka Sanbaruusho ka soo baxay haddaba maxay tahay sababta uu Sanbaruusho sidaas u yiri waa daawo doontaan waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa al-shabaab waxa ay hubaysay odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda beesha abgaal ku dhawaaqay dagaalkan nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli abaabulkii ugu dambeeyayna beesha abgaal ay ka wada gobolka shabeellaha dhexe xaajadu waxay taagan tahay abgaal guday iyaga ayaa isfahmayay shabaab abgaal iyo shabaab dowladda ayaa iswajahaya markaan xaaladu waa ay cakaran tahay waa daawo doontaan wasiirka arrimaha gudaha wuxuu shaqo joojin ku sameeyay maarayihii hay'adda markaasi diiwaangelinta dadweynaha eedeymo culus waa loo jeediyey maxay tahay eedeymaha loo haysto waa idin soo gudbin doonaa waxaa kaloo daawo doontaan wararka arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda fadlan haddii aad noqoto taa subscribe noo sar gambalkana furo una sii shargalay saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kumantiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantiin aan ku bilaawno xildhibaan cabdullaahi maxamed cali Sanbaruusho oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka ka socda qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee lagu soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab Sanbaruusho ayaa sheegay in dadka reer Hiiraan hubka ay u qaateen sidii iskaga difaaci lahaayeen al-shabaab wuxuuna markaas u baaqay maamul goboleedyada dalka ka jira in qabiilada Soomaaliyeed ay iyaguna markaas dagaalka la galaan al-shabaab si loo soo afjaro soo hadalku dhigay waxa uu sheegay Sanbaruusho in dagaalka hadda lagu jiro al-shabaab lagu fiirsaday dadka reer Hiiraan ahaan beesha uu ka soo jeeday xabaadle wuxuuna xusay inaysan sii wadi karin dagaalka ay kula jiraan al-shabaab haddaan garab lagu siin booyri sidoo kale qabiilada kale ee la dagaalamaya al-shabaab Sanbaruusho ayaa cadeeyay in reer Hiiraan haddii ay yihiin booyri si kastaba xaaladda ugu cuslaato aysan marnaba isdhiibi doonin wuxuuna sidoo kale sheegay in dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab intii gabar ay markaasi ay ka nooshahay walaalayaal oo qolo gooni ah ayuu culays ka haysaa booyri dagaalka keligeen ma sii wadi karno mana ka bixi karno haddii aysan beelaha kale nagala qayb qaadan saas oo ay tahayna isma dhiibayno oo aan waa dagaalamaynaa intii gabar naga nooshahay ayuu yidhi xildhibaan Sanbaruusho xildhibaanka ayaa ku baaqay in hub iyo ciidanba markaas lagu taageero gobolka Hiiraan haddii aan shabaab markaasi ugula dagaalamayn deegaanada kale ee dalka ka joogaan wuxuuna xusay in kooxdaasi hadda xoogooda markaas isugu geeyeen gobolka Hiiraan oo laga arki karo qaraxyada iyo markaasi dilalka qorshaysan ka fulnayaan hadalka xildhibaan Sanbaruusho ayaa ku soo celiyay xilli shacabka Hiiraan oo kaashan iyo ciidanka dowladda dagaal adag ay kula jiraan al-shabaab waxaana dagaalka ka socda goboladaasi ka dhashay khasaare badan oo isugu jira damashii dhaawac ugu dambeeyay weerarkii al-shabaab ay shalay ka geysteen xarunta Lamagaray oo markaasi la saddex qarax oo waaweyn halkaas ka fileen oo sababay khasaare kala duwan isugu jira damashii dhaawaca markana iyadoo abaabulkii ugu dambeeyay ee ka dhanka al-shabaab uu markaasi ka bilowday gobolka shabeellaha dhexe waa beesha abgaal markaasi xildhibaanada Israa'iishoodana hubka ay qaateen isla markaana ay jiid hore ee dagaalka shabeellaha dhexe ay ku soo qulqulayaan ayaa haddana waxaa si la yaab leh mar kale uga hadlay arrintaas oo war ka soo saaray dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe ku sugan dagaalamayaasha al-shabaab ayaana markaasi deegaanka lagu magacaabo masaajidka Cali Guduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa markaasi kulan ay ku yeesheen odayaal ka soo jeeda beesha abgaal oo taageera al-shabaab kuwa oo markaasi kulanka kadib ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud imaam maxamuud xaaji xamuud oo ah imaamka al-shabaab u magacaaban beesha abgaal oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay dagaal la galaan dowladda iskana difaacaan duulaanka ku soo wajahan sidoo hadalku dhigay imaamka waxa uu sheegay imaamka in hubka u qaateen geerkooda iyo weynkoodaba in ay dagaal ay la galaan ciidamada dowladda iyo kuwa admis waxa uuna sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan duulaan kasta oo markaasi lagu soo qaado al-shabaab ayaana deegaanada masaajidka Cali Guduud lagu magacaabo ku soo bandhigtay odayaal iyo dadka oo la hubeeyay kuwa oo markaasi la sheegay inay diyaar u yihiin inay dagaalka ay la galaan ciidamada dowladda iyo kuwa macluusleyda ee duulaanka ku abaaleeyay deegaanada al-shabaab ay ka joogaan shabeellaha dhexe ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay ka dhaqaaqay magaalada Muqdisho waxaana markaasi ciidankan la sheegay in duulaan ay ku yihiin deegaanada al-shabaab ka joogaan gobolka shabeellaha dhexe sawiradaha ayaana markaas baraha bulshada ku baahay odayaasha waxgaradka nabadoonada uqaasha
iyo sidoo kalente dhalinyaro ayaana markaas khibrada kasoo muuqday oo odayaashaasi markaas kasoo jeeda beesha abgaal kuwa oo ah dhanka mudolood markaasna ay sheegeen in dowladda madaxweyne xasan sheekh la dagaalami doonaan waa haddii bay yidhahdeen ay isku soo dayaan in shabeellaha dhexe oo ah deegaan nabdoon waa sida hadal ku dhigeen odayaashaasi ay ciidamada dowladda iyo kuwa admis ay weerar ay kusoo qaadaan ayagoo markaa difaacaya ururka dagaalamayaasha al-shabaab qaybihii dhexe ayaa daawanaysaan janalkeena saaxiibayaal haddii aad nagu soo tahay subscribe noo soo gambaralkana furo una sii share gareeya saaxiibadii markasta joogaan idinkoo commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay markaas la wareegeen mar kale deegaanka iyo Soomaal ee gobolka Hiiraan ka tirsanaa wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa deegaanka ee macluusleyda ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka ka tirsan gobolkaas gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ay saake dib u qabsadeen deegaanka iyo Soomaal wuxuuna markaas sheegay in aysan dib ugu bixi doonin deegaankaasi Soomaal oo hoos tagtay degmada Buulaburti oo dhacda bariga gobolka Hiiraan ayaa bilowgii toddobaadkan waxaa isaga baxay ciidamada bahaysanayay iyadoo markaas kabaxtaankaasi uu salku ku hayo inta maamulaysa deegaanka maadaama ciidamada dowladda ay deegaano kale ay ugu sii gudbayaan deegaanka qabashada deegaanka iyo Soomaal ayaa ku soo aadaysa xilli shalay qaraxyo ismidaamin ay ka dhaceen magaalada Beledweyne kuwaas oo dhaliyay dhimashada in ka badan 20 ruux iyo dhaawaca sodomeeye kale iyadoona weli meydad hor leh laga soo saaray dhismayaashii qaraxyada ee burburiyeen dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa shaqo joojin ku sameeyay maareeyihii markaasi hay'adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha ee Soomaaliyeed kadib eedeemo culus oo loo jeediyay iyo fadeexad weyn oo markaas ula kulmay eedeemahaas oo u badnaayeen xilguusha la'aan iyo markaas in shaqooyinkii loo egmaday uu baalmaraya wasiirka ayaana si ku meel gaar ah shaqada ugu joojiyay maareeyihii hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed National Identification Mukhtaar Xuseen Maxamed qoraalka shaqo joojinta maareeyihii Mukhtaar Xuseen Qooraansi ayaa lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta warka ayaana u qornaa markii waxaan lagu wargeliyey hay'adihii markaasi maareeya xilka laga qaaday ku-xigeenkiisa hay'adaha dowliga wasiirada markaasi ku shaqada arrintaas kadib markii la arkay bariir shaqo guusha la'aanta dayacaad shaqo iyo eedamo kale oo kan musuqmaasuq fadeexado waaweyn xafiiskiisa lagu arkay waxaa markaasi shaqada loo joojiyey maareeyihii hay'addaasi waxaana hawada shaqada hadda si meel gaar ah u sii wadi doona bariir ku-xigeenka maareeyaha guud ee hay'adda oo kaashanaya agaasimo waaxidada iyo shaqaalaha kale ee hay'adda fulin wacan Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta ayaana markaas ku sixan warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee shaqo joojinta loogu sameeyay maareeyihii hay'adda diiwaangelinta dadweynaha ee Soomaaliyeed wararka arrimaha caalamkan waxaa ugu waaweyn saaxiibayaal weli waxaa sii xoogeysanaya banaanbaxyada ka dhan ah Iiraan oo dadka shacabka ay wadaan iyadoona si weyn loogu soo jeedo dowladda oo markaas dhaleeceeno kala duwan ay kala kulmayso kadib dil ay u geysteen haweeney dadka ka mid ah oo lagu arkay in ay markaasi siibatay niqaabka markaasi bay banaanka keentay maadaama bay dhaqankaas yihiin dhaqan reer galbeedka leeyihiin Iiraaniyiintu ayaana si weyn u mucaaradaya xukuumadda ayagoo markaasi ka soo jeeda wararka la xiriira dilalka iyo markaasi in loo handadayo wararkii waaweynana aad nagala socoteen saaxiibayaal channelkeena waana intaa haddii aad nagu soo fadlan ay maamin oo wixii talo iyo tusaale ah halkan inoogu reeba aad baad u mahadsantihiin